labadan gabdhood ayaa fiidiyoyaasha noocan soo dhigay baxday baaritaan sameeyay ka bacdi waalidiinta Soomaalida badankooda in carruurtooda jeclaan wax reality bay ka dhashay many occasion waxaan ku dhahay waalidiinta Soomaalida interest bay carruurtooda u dhalaanay naxariis jacayl ma u dhalaan waxaan u baahanahay dadka waalidka aan ahayn in ay joojiyaan inay ka hadlaan waalidiintooda carruurtooda sababtay u dhaleen dunidaan jooga adigu waalidkaba soo aragtay waalid kale witness oo ma tihid haddii waalidka ay kugu soo dhaheen inaan kugu dangaaraan kuu dhala ama aan kuu heshadaan kuu dhale waa waxay ayagu ku dhaleen waalidka does not represent waalidiinta dunida waxaan u baahanahay Soomaalidan unhealed traumas ka wada qabo kurtigood siiba gabdhaha waxaan u baahanahay walaalayaal oo macaaniyaal waa ogahay qaarkiin sidii booyisooyinkii baa la idin la soo dhaqmay waa ogahay qaarkiin waa la idin soo canaaday waa la idin soo cariiriyay dunida baa isku dayaysin inaad ku ciil baxdaan fadlan dhaawacayaasha la idin soo gaarsiiyay gabar Soomaaliyeed baa idin dhahayso dhaawac haduu ku soo gaaray markaad ilmaha ahayd qaladkaaga ma ahayn waalidiinta inay xumaadaan fadlan isdhay inta isdhay kartid dhay maxaa yeelay dunida dhinac ka xumaysay maxaa yeelay waalidiinta baa ku soo xumeeyay waalidiinta islaamka inaad u gaftid qalad baan u arkaa ani dhaawacayaasha yada aan dhayno it's not about waalidiinta Soomaalida versus waalidiinta oo dunida waalidiin xun waa jiraan Soomaalidu 1% waalidiinta ay xun yihiin 99% oo wanaagsan baa jirto dunida kalena sidoo kale just because walid baa ku dhahay I love you macnaheeda ma aha in uu gudaha uu ka soo go'ayo dad waxa jira I love you carruurtooda intay dhahaan madaxa ka toogtaa jiro bedelkii community-gayga aan isku soo aroorin lahayn bedelkii haddii waalidiinta qaarkood ay xun yihiin mustaqbalka aad noqon lahayd ama aad isku dayi lahayd inaad abuurtid community fiican waalidiin fiican fadlan qaybitaanka dadka la kala qaybinaya hala joojiyo qof walba fikradiisa uu ka hadli karaa wax dhibaato ma jiraan laakiin se in fikradda with conviction looga hadlo oo la isku dayo adiga fikradaada inay facts ay tahay inaad ka dhigtid midaas qalad waay waalidiinta hadda u soo dhiganay waalidiinta yaana u dhicin